kulanti wacan u wanaagsan qiyaarta awada naga daawaneysay ku soo dhawaada warka telefishinka ilaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo cashuur kordhin ku sameysay badeecadaha ka soo dago dekada weyn ee magaalada Muqdisho hay'adda NISA oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsan dagaalyahanada xarakada al-shabaab golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo ergey cusub u soo magacaabay Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Puntland oo shir gudoomiyay shir looga hadlayay amniga doorashooyinka deegaanada maamulka Puntland dowladda UK oo hakisay socdaal oo ku tagi lahay dalkaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hay'adaha samafalka oo ka digay in colaadda dalka Suudaan ee saameyn ay ku yeelato howlaha gargaarka laga wada Soomaaliya cabsi xooggan oo laga qabo in uu sameeyo fatahaad webiga Shabeelle intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka ilaa